الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن أخيارتنا داوانaysa meel kasto aad joogtaan waa madasha oo maanta si toos ah kaga imaanaysa xarunta weyn ee shirarka Minneapolis Convention Center halkaas oo maanta ka dhacday shir ballaaran oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya oo markaasi lagu soo dhaweynaya madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku jooga gobolka Minnesota xafladan oo ay dad badan oo Soomaali isugu yimaadeen ayaa waxa laga arrinsaday xaaladda Soomaaliya ee ku jirto abaaraha burcad badeedka iyo arrimaha dawladda iyo siyaasadda iyo sidii hore loogu gudbi lahaa xaaladaha hadda ee Soomaaliya ku jirto arintan oo ay ka hadleen dad badan oo ah hogaamiyayaasha beesha Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha ayaa waxa markaasi dadkii halkaas isugu yimid ka muuqday in ay u riyaaqayeen ama ay rabeenba in ay wax ka maqlaan wadankoodii hooyo khudbadii halkaasi laga jeediyay oo badnaa ayaa waxaan jeclahay in aan maanta qaybta koobaad ee barnaamijkeena ku soo qaadano khudbadii uu madaxweyne Caalin halkaasi ka jeediyay wuxuuna hadalkiisii ku yiri Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh salaam ka bacdi aad marka ugu horeysa Ilaahay baa mahad celinaya marka labaadna dadkii iyo bulshadii marka dalka soo galay ilaa iyo haddeer soo dhaweynta iyo qadarinta iyo walaaltinimada ku mashquulsanay ayaan aad ugu mahad celinaya isla markaana caawa xafladan quruxda badan la soo qabanqaabiyay waa mahadsantiin aad leeyahay Minnesota waxaan rabaa inaan salaamo dhammaan bulshaweynta noocyada ay kala tahay dhalinyarada haweenka odayaasha culimada waxgaradka kulli waa idin wada salaamayaa mar labaad waxaan si gaar ah u salaamayaa ayagana fanaaniinta iyo bahda saxaafadda oo arrin aad u qiimo badan heesa wadani ah iyo hawsha hadda aad arkaysaan Soomaaliya oo dhan inay warka gaarsiiyaan diyaarka u ah 24 saac ayagana saxaafadda waa u mahad celinaya iyo fanaaniintaba waxaan oo kale ka mahad celinayaa dalkan aan joogno dawladda Mareykanka oo sahashay dhibaatadii dalka ka dhacday xoogii badnayd ee keentay in ummaddu soo qaxdo halkaan la yimaado dadka soo dhaweysay siisay wax alla wixii ay maanta aad la mid tihiin dadkii hore ugu dhashay wadanka marka inaad waxaa la rabaa idinkana idinku waajib ah mahad celintaas iyo soo dhaweynteeda inaad qayb weyn ka qaataan maadaama kii hore ugu dhashay iyo kii hadda ku dhashay kulli loo wada siman yahay dalka laftirkiisana ay gacan weyn ka geysatay sidii loo soo qaban lahaa runtii gabadhii halkan gabayga ka tirisay shiikha waxa uu yiri arrimaha dhibka jiraahi waa mahadsan tahay labadaba waxay sheegeen oo caddeeyeen in ninku xaajifuna kitaabka Ilaahay uu noo sharaxay noo sheegay inaan ku adkaano gabadhana waxa dib noo dhigay oo dhibaatada nagu hayay noo sharaxday ayagana waa mahadsan yihiin maamulka Galmudug sida magaciisa ka muuqata waa mid ay leeyihiin dadka degan gobollada Galmudug iyo Mudug aan loo xaglin karin qabiil gaar ah waxaana la dhisay muddo 5 sano ka hor ah si loo daboolo baahi dhanka maamulka nabadgelyada iyo arrimaha bulshada oo ka jirtay
goboladan kadib marka ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1991. burburkaas oo dhibaatadii ka dhalatay qaarkii u soo bixisay waqooyiga Ameerika oo caawa aan joogno. hadafkii maamulkan lagu aasaasay wuxuu ahaa mid ballaaran. waa gobol furan oo taladeeda ay ka dhaxayso dadka degan gobolkaas. shakhsi kasta iyo koox kasta oo talo lagu horumarinayo danaha bulshadeenna haysana waxaa ku soo dhawaynaynaa gacmo furan si loo helo midnimo saldhiggeedu adag yahay, taas oo keeni karta danaha muwaadiniinta gobolkan inay noqdaan muhiimadda koowaad. maamulka hadda wuxuu ku guda jiraa wax ka beddelidda iyo dhammaystirka dastuurka dowlad goboleedka Galmudug oo aan doonayno inaan hirgelino goordhow. ujeeddada laga leeyahay waxaa weeyaan in si cadaalad ah loo qaybiyo awoodda maamulka iyo khayraadka gobolka si aan cidna loo dulmin. maadaama gobolka si markaad u fiirisid uu noqonayo 4.5ka wax lagu qaybsaday oo kale, intiisa badan magac aan ku jirin horta ma jiro, laakiin magac walba waxbaa ka maqan. marka baarlamaanka la samaynayo iyo arrimaha mataqaanaa maamulka la ballaarinayo, khayraadka la qaybsanayo, waxaa la rabaa wax walba sidii loogu talagalay. insha allah ilaahay tawfiiqda hana waafajiye, taasaan ku dadaalaynaa. arrinta Galmudug ka socota waxay u dhigantaa dadaalkii SYL ay u gashay midaynta iyo xornimada ummadda Soomaaliyeed. waxaana aaminsanahay in soo celinta qarannimadii ummadda Soomaaliyeed ay ka bilaabatay gobollada dhexe mar kale. sidaa wada ogsoontihiin, Soomaali badan oo ka soo barakaciyeen gobollada kala duwan ee dalka, dhibaatooyin ay ka mid yihiin abaaro iyo bartilmaameedsi siyaasadeed ayaa nabadgelyo biday gobolka Galmudug soo biday. waxaa loo soo dhaweeyey si walaaltinimo ah annagoo wax badan gacanteenna ku jirin. matalan xagga khayraadka wax soo saarka badan aysan jirin, deked hadda noo furan aysan jirin, haddana waxaan qasab nagu noqotay walaalaheen Soomaaliyeed sababo kastaba ha keenaane inaan soo dhaweyno gobolka, ay nagula noolaadaan, waxa aan qabno ay nala qabaan, waxaan cunno ay nala cunaan, shaqana ay ka dhex shaqaystaan hadday ka helayaan. keliya waxaa weeye qof kasta oo nabadgelyo darro wada ayagaas yimid iyo annaga hore u joognay inaan iska wada qabanno ayaa ballanteenu tahay keliya. xuquuqaha aasaasiga ah ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed sida inay nabad ugu noolaan karaan guud ahaan waddanka waa kuwo lama taabtaan ah oo muhiimadda weyn ku leh agteenna. ilaalinta amnigoodana waajib ayaa laga saaran. qurba joogta idinka ayaa ugu horeysaan, waxaana ka codsanaynaa inaad ka warhaysaan arrintaas oo gacan ka geysataan. maanta Galmudug waxay haysataa aqoonsi caalami ah, waxayna matashaa danaha ummaddan gudaha iyo dibaddaba kala joogta. horumar la taaban karo ayaa laga gaaray dhanka nabadda. waa mid lagu faani karo oo dadka Soomaaliyeed ay wada harsan karaan. ma dhahayno waa 100%,
wax walba boqolkiiba boqol ilaahay baa iska leh annagu ma buuxi karna wax walba boqolkiiba boqol laakiin mid aan ku kalsoonahay laguna kalsoonaan karo ayaa ilaahayna siiyey asagaana uga mahad celinayna waxaan anagu keeni karna maaha laakiin amnigu waa mid si weyn laysugu halayn karo warba joogta waxaa laga doonayaa inay maalgashi ku samaystaan dalkooda si looga baxo dhaqaale xumada ka jirta dalka oo keentay faqri dhalinyaro badan ku qasabtay inay nolosha ku raadsadaan qaabab aan sharci ahayn sidaan ognahay burcadbadeed xeebaha Soomaaliyeed waxaa adduunka dusha ka saara Soomaaliya oo keli ah waxaa hadda gacanta ku haynaa dhismaha hay-adaha cadaaladda ee gobolka si aan u xakamayno dambiyada badda iyo dhulka ka dhacaya waana arrin wax laga qaban karo adduunka waxaan u sheegaynaa inay ayagu joojiyaan malaayiinta madax furashada loo bixinayo oo qalqal gelisay dhaqaalaha xalaasha ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed sida adag ku soo saaraan waxa weeye sicir bararka ay dhaliyaan ayaa waxa weeye lacagaha la siiyo burcadbadeeda dad waxa sida ay ku soo galeen waxa la yiraahdaa wixii si fudud ku soo gala si fudud ay kaaga baxaan Soomaaliya marka dadkii waxay keeneen hadda haddii ay markabka hayaan ama ay sii qaadanayaan ama hadaasna koobka shaahiga markuu 2 kun joogo ayagu 10 kun ku iibsanayaan maadaama uu amaah yahay hadhowna sicir bararkaas ayaa waddankoo dhan wada saameeyey dad aan shaqayn xoolo fiican lahayn marka la yiraahdo adigana meesha 2 kun ama 1 kun ku iibsan jiray 10 kun ku iibi dhibaato ka soo gaartay fara badan raashinkii baa kacay wax walba cirkaa aaday marka ilaahay ha naga israadana arrintaasina waxa weeye waa waxa ay keentay duruufaha cusub ee badda hadda waxaa sidoo kale ka doonaynaa inay ka hor istaagaan burcadda kala badaheena sida sharci darrada ah uga kalluumaysata iyo kuwa sunta ku shuba hal burcad maaha la burcadbadeedaan Soomaalida midda kala dhashay horta welina hay welina Soomaaliya waa la socotaan cudurrada cusub ee dalka ku farabatay oo ku faafaya waa la socotaan burcadbadeed Soomaaliyeed oo la xiray oo la dilay oo siyaabo kala badan loola dhaqmay waa buuxaan weli ma maqasheen markab sun daadinaya ama kalluun sharci darra buranaya ayaa la qabtay weli ma maqasheen waa maya way imise markabaa badda joogta oo ilaalisaa la yiri oo ciidamada ay leeyihiin waa la socotaan kulligiin waayo marka idinku isweydiiya haamihii tsunamiga ay soo tuftayna xeebahay hadda yaaleen mar dhow hadday qarxaanna ummadda halisay ku jirtaa ogaada marka intaad qabiil iyo kooxaysi iyo danaysi gaara u kala socotaan meelaad ku laabataan hadhow inaadnaan helayn ogaada haddaadan hadda u kicin waxbarashada iyo caafimaadka wax badan ayaa laga qabtay qorshaha sare loogu qaadayo iskuullada iyo adeegyo caafimaad oo qof kasta uu heli karo ayaa gacanta ku haynaa habeen iyo maalin waa u taagan hadda maalan galmudug intaan gacanta ku haynay markii la aasaasayay aad iyo aad ay u hoosaysay maantana waxaan maraynaa hadda ka furan magaalada Gaalkacyo galmudug qaybteeda in ilaa heer 2 jaamacadood ay ka furan yihiin
ووحي إلهي متداس قابا أيان إلهي نقول قارسية حق عافمات كان وحاجرة دقموينك كل جود لكن ولي أنا وذا قارن تولوينك رويه عافمات كMCH إنه كوذا فريا همان وإلهي بهذا waxaasoo dhan Soomaaliya haddaan rabno inay horumar gaarto wanaag la gaaro midnimo la'aan lama qaban karo galmudug intiinaan hadda halkaa fadhisa iyo inta maqan reer Minnesota ama Soomaali waa u wada baahannahay gacan baan idinkaaga baahannahay si midnimadii intaan u qaadno wanaagga tiirkii hore aan taagnaan jirnay waa ogtiin adduunka meeshaan marka gaarna sharafteeda iyo qiimaha aan ka gaarno ilaahay ha noo soo celiyo abaara aad u xun oo taabtay nolosha qof kasta oo Soomaali ah ayaa dhacay sanadkan waxaana ku dhinteen kumanaan carruur ah iyo haween ah hadda waddankii roob ayaa ka da'ay laakiin lama gaarin xilli ay dadka ka maarmi karaan taageerada dadka gudaha iyo midda dibadda marka hore midda ilaahay aan weydiisanaynaa kabacdina midda dadkaan weydiinaynaa insha allah inaad dadkiina u kacdaanna waa ku rajaweynaa marka dadka inaad garab siisaan weli way idinka sugayaan oo dowlad ahaan waxaan qorshaynaynaa in mashaariic xilligooda dheer yahay oo looga hortago masiibooyin noocaan ah inay soo laabtaan la hirgeliyo si beeralayda iyo kalluumaysatada loo taageero annagoo la kaashanayna hay-adaha qaramada midoobay iyo in dadka xoolaha ka dhammaadeen noloshooda dib loo dhiso maanta Soomaaliya waxay taagan tahay xilli kala guur ah oo keeni kara rajo iyo walwal labaad rajana waa la heli karaa fiican walwalna waa soo laaban karaa marka labadaba ilaahay bay horta ku xiran ilaahay ka baryaynaa inuusan walwal dambe dhib dambe inuusan noo celin laakiin halkaanaan fadhinaynaa ma tegayno aqoontii ma geynayno xooggii ma geynayno dhaqaalihii ma geynayno maskaxdii reer magaalnimadii ma geynayno ma soconaysa ogaada haddaa rabtaan inay arrintaasi dhisanto kaalaya ka soo qaybgal kan baagamuudada aqoonta leh ee shaqada markaan aan haysan waa inuu yimaadaa kan shaqeeyana waa inuu taakuleeyaa inta wax walba ciribta ay istaagayaan maalmahan dambana waxay u badan tahay dhanka welwelka markaa eegto sida loo bartilmaameedsanayo dadka aan waxba galabsan oo ay ugu dambeeyeen ardaydii jaamacadaha u socotay ee loo qaadi lahaa dalka Turkiya dadka falkaas sameeyna diinta ayay ka been sheegeen diinteenna waxay ilaalinaysaa danaha ummadda oo ay ugu weyn tahay nafta qofka sharafkiisa iyo hantidiisa intaba way ku xadgudbeen waxaana lagu tirtiri karaa in dadka Soomaaliyeed si midaysan uga soo horjeestaan ummadda intii aad iyo aad wax looga dhaxay ahayd waa markii labaad oo arrintaasi ay dhacdo dadkii jaamacadda ka qalin jabiyey sanadkii hore wasiiradii ugu dhaqdhaqaaqa roonaa wasiirada iyo ardaydii ka soo qalin jabisay jaamacadda takhaatiirta ah oo dalkeena ku yar maanta aad ogtihiin oo takhaatiir lala yahay ardadaas iyo macallimiintii iyo waalidiintii kuwii laayay ayaa haddana maanta kuwaan dambena laayay marka waxa weeye ilaah baan sheegaynaa horta midda labaadna ummaddu inay ka digtoonaataa la rabaa mar kale si aanay u dhicin arrintan waa in dhala'aan ha laysdhiga waayo
arrintaas ummadda Soomaaliyeed taalla meel kasta ay joogto arrimaha socda haddaan ka hadalno Soomaalida waxaa loo dejiyey qorshe looga saarayo ku-meelgaarnimada kaas oo loo bixiyey road map waxaana qabaa inaan hadafkaas laga gaari karin wax laga gaari karaa aysan jirin niyad sami xisaabtan Soomaalinimo iyo isku tanaasul haddaan la helin wax rajo ah oo laga gaari karaa ay jiraan marka ilaahay hana tusaba haweenka waxay door muhiim ah ku leeyihiin laga soo bilaabo nolosha guriga ilaa siyaasadda oo ay ka hayaan xafiisyo muhiim ah waxay ku lug leeyihiin dhismaha gobolka iyo waddanka intaba waxayna yihiin lafdhabarka dalka waxaana idinka doonaynaa inaad dadaalkaas meeshiina ka sii wadaan raggu yuusuf xanaadi maanta waxaa weeye gudaha dalka hooyooyinka haya raggii ayagaa haya wiilkooda ayagaa haya dhibaatada maanta jirta xooggeeda ayagay ku dhacdaa hadduu soo dhaawacmana ayadaa la soo agdhigaa marka guulka fiican u rajeeya gabdhaha waa mahad waxaan doonayaa inaan si gaara ula hadlo dhallinyarada maadaama ay yihiin dadka ay bulsho kasta mustaqbalkeeda u dhisan yahay dhallinyarada mustaqbalka dambe ayagaa iskale marka ayagoo mustaqbalkii dambe ah in haddana ay ayagu mustaqbalkii laga xumeeyo ama ay ayagu iska xumeeyaan wax soo geli karama waxaan idiin soo jeedinayaa inaad ka faa'iidaysataan fursadaha aad ku haysataan dalkan waa dhallinyarada weliba dalkan joogta oo heshay jaamacado iskuullo xirfado kale shaqooyin intaba heli karta inta ay dhallinyar yihiin ha ka faa'iidaystaan arrimaha kale ee dhibka iyo howlaha maaragtay qalqalooca ah inay ka baxaan waalidkuna inuu la ilaaliyo mustaqbalkaa laga rabaa waxaana idinku faa'iidaystaan laakiin hooyo dalkiina hooyo ee Soomaaliya si dib u dhis loogu sameeyo dhallinyaradaa samey kartoo keenaysa insha allahu reer Minnesota waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin qadarintiina soo dhaweyntiina rag iyo dumarba waxaana leeyahay Soomaaliya ha noolaato meesha hadda galmudug waxaan idiin ballan qaadayaa anigu reer mudug ma ahayne waxaan tegay inaan maartaqaanaa nabadda inay halkaa ka dhalataan u aaday halkaana ay ka socoto waqooyina ay aado koonfurna ay aado marka idinka haddaan ilaahay iyo idinka haddaan gacan idinka helinna ma soconayso Soomaaliya ha noolaato marka galmudugna ha noolaato idinkana noolaadana asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa tahay daawadayaal waxaan u maleynayaa in aad ka bogateen khudbadaasi oo halkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka madaxweyne Caalin oo ka jeediyay magaalada Minneapolis halkaas isugu yimaadeen dad badan sidoo kale sidaan hore ugu sheegay khudbado badan oo kala duwan iyo dad badan ayaa ka hadlay xafladan waxaan jeclahay haddii aad rabtaan inaad khudbadahaas kala duwan dhageystaan inaad ka fiirsan kartaan ama aan idin sheegaya madasha.com ama sidoo kale channelka YouTube aan ku leenahay waa www.youtube.com/madasha news waan jahweynay dhammaan madasha idin leh intaan hawada dib ugu kulmi doono sidaas ina